أنا صنع موضوع أيها صدح قضبة إن شاء الله تعالى سكوبان وتلمام دونا قضبة كواد وحياي تدكو waxay isku khaldaan nasabkii abtirsiinta iyo qabyaalada nasab iyo abtirsiin diinta islaamku maxay ka qabtaa waa qodobka koobaad qodobka labaad oo nuxurka hadalkeena looguna magac daray kulankeenan qabyaalada shariicadu ay diiday diinta islaamku ay la dagaalantay xididada ay u siibtay waatee muuqaalo iyo sawiro dhamaanteen baa aynu garanayna laakiin aynu u baahanay inaynu isxusuusino waliba aynu isugu celcelino ayaan insha Allah ta'ala ka sheegi doonaa qodobka saddexaad u dambeeya qabyaalada aafooyinkeeda ayaan isla ka hadalo abwaalguuleed baa taayniga kaafiyay diin iyo adduunyo wuxuu dhaafayba gabagiisaasi garanaya xaqiiqata in yarun baan ku kaabi doonaa biidillah subhanahu wa ta'ala wadaan iska daayana aanu malaynayo gabagiisu inuu naga filayahay arinta ku saabsan nasabkii abtirsiintu waa wax jiro shariicada oo gashahay arrin waaqiciyana ah oo qof waliba cid buu ka soo jeedaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jiritaankiisan iyo joogistan adduunyada uu joogo sabab uga dhigay cidaas ana qofka loogu abtiriyaa waa in hebel inankaasi inantaasi waa in hebel baa la yiraahdaa taasi ayaa sii socota ilaa ay galayso nabi aadam alayhi salatu wasalaam abtirsiinta noocaasi iyo nasabka shariicadu may diidin bal way dhiirigelis qofku inuu nasab iyo abtirsiin yeesho meel uu galo oo lagu garto shariicadu aad bay ugu dadaashay ilaahayna subhanahu wa ta'ala aayadii quraanka ay walaalkeen inoogu furfuray kulankeenan waxa uu ku sheegay ujeedada dadka uga dhigay shacbiyo iyo qabaa'il inay tahay inay is aqoonsadaan oo is gartaan oo qofka ciwaankiisi wixii lagu garanaya halkii laga xiriiriyay weey waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'arafu nasabka ahkaam ba ku xiran ahkaamta ku xiran waxa kamida silatu rahim xiriirinta qaraabada oo nasab iyo abtirsiin hadaan jirin oo la dhaha la iska ilaabo oo dadku ha ku abtirsadaan ururo siyaasadeed ama ururo bulsho ama shaqooyinkooda ha ku abtirsadaan iyo mihnada farsamooyinka ay leeyihiin waxa meesha ka baxaya arrin aad u weyn oo ah silatu rahim xiriirintii qaraabada oo ogsoonahay shariicada islaamku halka ay gaarsiisay qofku markuu garto cid ay qaraabo yihiin ayuu xiriirin karaa daanu garanahay intaas meesha way ka baxaysaa sida awgeed wuxuu nabigeena maxamed alayhi salatu wasalaam saxaakim wariyay ta'allamu min ansabikum ma tasilu biha arhamakum nasabkiina iyo abtirsiintiina waxaad ka barataan in aad ku xidhiidhisaan qaraabadiina dadka qaar kood oo laga yaabo in xamaasad diineed ay hayso ayaa waxa laga yaabaa caruurtooda inaanay abtirsiinta barin wadaadaan bari maayo waa qabyaalad nasabkii iyo casabiyadii jaahiliga ahayd baa iskaga khaldamay oo ilmihiisa waxa laga inuu ku dhaad dadku markay ku weydiiyaan yaa tahay waxaad ku tiraahdaa islaam baanahay islaam uu yahay laakiin nasabna uu leeyahay nabi maxamed baa la qofku ha barto abtirsiintiisa waxa loo baranayaa waa maxay waa si uu qaraabadiisa u aqoonsado oo u xiriiriyo arinta noocaasi waa taa inuu kaga duwanahay ummadaha bilaa nasabka iyo bilaa abtirsiinta ah ee ummadaha gaaladu ay u badan yihiin waxaanay kamid tahay waxyaabaha ummadeena isku xidha الروابط الاجتماعية بين أمتنا حيوان أمتنا اسكو حدا من لماذا كقيب قاطعي كمت هاي abtirsiintu ما قبيالده قضب كادان انتا ku dhaafo qodobka labaad qabyaalada shariicadu ay diiday waatee qofku abtirsiin inuu yeesho qabiilo reer hebel la yiraahdo qof kamida inuu noqdo shariicadu may diidin in loogu abtiriyo la yiraahdo fulan ibn fulan al-fulani hebel hebel oo reer hebela ama hebelaaye hebel oo reer hebela diinta islaamku may diidin waxyaabo la yaab kale waxa kamid ah halkaan dhex galiyay dadkeenu qabyaalada in lagu dhaqmo oo dhaqankii jaahiliga ahayd la fuliyo ma dhibsadaan
laakiin waxay la yaabaan haddii reer la soo hadal qaado galaas adoo ku jira jaamacadeed ama iskuul ama macahad haddaad reer hebel soo qaadda ardaydo dhan wada qoslayaan waana qosol la yaab ka dhashay haddaad tidhaahdo hebelkii reer hebel ahaa waxaa laga yaabaa inay kula yaabaan oo yidhaahdaan wadaadku qabyaaladu yaqaana hadda waa tii nasabkii abtirsiinta qofku cidda uu yahay la sheegayay ee lagu garanayay se ilaahay uu yidhi litacaarafu alla ilaahay reer burca u badan baan u malaynayaa reerka uu yahay inay raaciyaan mid xunna maaha reer burca yaanay hadalkayga ka xanaaqin hadii jeeraale waxaan maqlaa iyagoo yidhaahda xataa wadaadadooda iyo culimadooda markay qof soo hadal qaadaan hebel hebel oo reer hebel ah qoladiisay sheegayaan waa sidii saxda ahayd mar haddaan qofka qabiilkiisa aan lagu caayahayn aan lagu liidahayn xaquu leeyahay aan lagu weysiinahayn waxaanu mudan aan dusha lagaga saarahayn ee lagu garanayo waa tii ilaahay aayadda ku sheegay rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi litacaarafu qabyaalada shareecadu ay diiday taa aynu sheegnay aynu sharaxnay maaha qabyaalada shareecadu ay diiday waa qofka abtirsiintiisa oo isagu aanu dooran in lagu duro oo lagu caayo inuu reer hebel yahay طعن في الانصاب وانا arrin sharci ahaan u khaldan oo qofkii waa la caayaya marka nasabkiisii la duro oo salahan cidii dhashay qabiiladu ka soo jeeday la yiraahdo maba ahaabe waa sheegato ama iyadoo loo qirsay lagu caayo la yiraahdo hebelkaasi waa reer hebelkii sida ahayo isna iyaga daayun buu la mid yahay sida loo quursanayo baa isagana loo quursanaya waa arrin caqli ahaan u khaldan oo qofku sidiisaba wuxuu ku mutaystaa amaan ama ay iyo dhaleecayn wuxuu ku mutaystaa wuxuu isagu ikhtiyaar u leeyahay waxa loo yaqaanaa sifaatu tartiya oo sifaadka qofku aanu isagu dooran xataa caqli ahaan bay khalad u tahay qofka in lagu caayo ama base in lagu amaano dad kale laga sareysiyo qofkeeba doortay aabihii ka uu noqonayo ama hooyadii tahay noqonayso yaa inaga mid oo doortay reerka waa abtirsiin ahaan ka mid noqonayo qof doortay ma jiro qof lagala tashaday ma jiro waa qayb ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay baa qaybiyay qof walba cid waalid u noqonaysa iyo cid nasab iyo abtirsiin ay wadaagayaan marka arrinka noocaas qofkii in lagu caayo lagu dhaleeceeyo lagu liidaa hatta waxay noqonaysaa iyadoo aqliga si sax ah looga shaqeysin astaan bay u tahay in aqliga si sax ah looga shaqeysin qabyaalada shariicadu ay diiday waa qofka bani aadamka ah in loogu faano sidoo uu sheegayay Abu Anguuleen guriyaha bay ka soo bilaabantaa buu yiri in loogu faano nasab iyo abtirsiin iyo qofkan cidii dhashay waxa la yiraahdaa faankana sidiisaba shariicada islaamku way diiday waayo faanku wuxuu dhalaa kibir iyo sarreysiin qofkan faaniyada kale iska sarreysiinayo بالمقابل تاك سورجيت كذا نوحد على حقريس قفك وحقريه ضد كان وفانيه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد إلى يوحي وحي يضيبون النبي محمد عليه الصلاة والسلام كبر كيس السريسين تين تسكت ديسان كبر كافان كينيه قفنا قف إنانو كحد قدبين وقفكم مروا قف كحد قدبيو قف كان إنه وحكو دامو وكسر رأيه أي أنت بدل حد قدبك وكنشة إنه قف كان وحسبيضه أما حوق هاي سبيضه أما قروح هاي سبيضه أما حوله هاي سبيضه أما مدحتني ما هاي سبيضه قبيلات الشريعة أي ديدي وقبيلات دي تشرتي في الجاهلية هاي قفكو إنه مروا البكسو تشيدو لنا عقول ديس قبيل كيس هل كل جد وهاسيد ويرجع بياجي عربات أنا من غزية إن غوت غزية وغويت أنا وحن كم إذا قبيلة اللي هذا غزية قال هذا سي هدي أي لومان هدي خلدمان هدي قرد الرودان مرول بيجا يلا تشرا انصر أخاك ظالما أو مظلوما قفك ورباهنتا دقيستا أما الضوضاء أما أخريا وحادي هذا اللي يقول عيا دقيس لسه قارية قبيلة يندون العاية ميات قرن إنسان قبيل وضحن
oo laf la qaata ama qof la qaata aan lahayn oo wada dambiile ah hal dambi ku wada jira ama qabiil wada wanaagsan dhamaantii oo cid xun iyo cid khaldan toolaani ku jirin ma jiro cid waliba way isku jirtaa qabiilo kasta waxa laga helayaa qof xun iyo qof wanaagsan mid gardaroodo dulmi geysta iyo mid cadaalad iyo wanaag ku shaqeeya qabiiladu waa dad badan imika inteena halkan fadhida xukum qura ma siin kara Soomaa qof haduu ina wada caayuda intiina halka fadhida siyaasatiin dhamaanteena waxaanu qirsanay inuu khaldan yahay qabiiladan maxaad malaynaysaa shakhsi aad caaydo waad u tagi kartaa qofka waxa oran kartaa waan ku caayay ama waxbaan ka sheegay icafi u ku cafin kara haduu ku cafi waayo wanaagyada aakhiro hadii ay dhacdo loo qaadayo oo hal qof lagaaga qaadayo hadii wanaagyada xaqiisa oo fi waayaan oo noqoto xumaantiisa iyo dambigiisa in lagu soo rarana hal qof dambigiisa lagu soo raraya bal qabiiladan oo sawiro adigu markay ugu yar tahay dhowr kun oo qof oo cayday oo la yiri wanaagyadaadii baa loo qaybinaya ila waa dulmideen ama la yiri wanaagyadu markay dhamaadeen dadkaas oo dhan baa xumaanoodii la soo qaadaya adiga dhabarka lagu saaraya تصور aad bay maanta inoo la sahlantay qofku inuu iska reerebel waa sida laakiin culayska ay leedahay iyo dulmiga uu geystay baanu dareensanayn walaada nabi maxamed wuxuu alayhi salatu wasalaam inna min afra al-fira an yaqdaha ash-sha'iru fi al-qabilati bi asriha been abuurada u waaweyn iyo ribaynta waxa kamida oo kuwa u darana qofka gabiyaaga ah hada jeer dadka gabiya ayay ku badan tahay ama ay ku badnaan jirtay qabiiladan qofku inuu gabiyo oo gabay ku caay laakiin maanta intanay soo baxeen waxaan social media la yiraahdaa gabiyaagiiba dadkii kale ayaa ka badsaday waliba dhalinyarta isticmaasha ay u badan yihiin dhalinyartii aqoonta lagu tuhmaayay iyo aqliga iyo horumar inay ka fikiraan wax diinteena markaa wanaag ku soo kordhiya ama adduunyadeena horumarkeeda ka qayb qaata ayaa waxay qorayaan haduu qof hadlo haduu qof culimo hadlo waxa arkaysa qaar xaq oo si qabiilad ku qoraya oranaya waa sheekh reer hebel weey haduu mid siyaasi hadlo waxa arkaysa qaar qabiilad ku caaya oo qofka intay ka talaabaan reer dhan u talaabaya qof kasto oo hadla inta badan waxba lagu tacliiqinayo ama faalada laga bixinayo waxa kamida wax qabiilad ku saabsan baa kamida waxa la yiraahdo qabiiladu sida uu sheegay abwaanku waxay leedahay raadad xunxun raadad diineed iyo kuwa adduunyo labadaba way leedahay qofka qabiilad ku shaqeynaya waa qof caytamaya waa qof dadka xaqiraya khilaafay qowlka ilaahay uu yiri la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum waa qof iskibrinaya oo dadka iska sarreysiinaya waa qof aan mabda aqiido iyo miisaan sax arrimaha aan saarahayn ee abtirsiin iyo reer hebel saaraya qofkii qabiilada ku shaqeynaya waa qof aad iyo aad uga fog cadaaladda waa qof wixii ilaahay u diiday oo ka xaaraantimeeyay sameynaya nabi maxamed alayhi salatu wasalaam laysa minna man daa ila asabiyya qofka qabiilad dadka ugu yeera ee ku abaabula naga mid ma aha dayriga yahay rasuulku alayhi salatu wasalaam laysa minna من قاتل على عصبيه قفك قبيلات ودغالما ديري uga yahay buu nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ليس منا من قتل في عصبيه قفك isagoo qabiilad u dagaalamay la dilaa shaqo isku maleeyeen oo aniga iga mid maaha buu nabi maxamed alayhi salatu wasalaam dayr ayuu iga yahay xumaanta diineed bay qabiiladu leedahay xagga adduunyada marka laga eegana qabiiladu maxay dhashaa tafaraaruq bay dhashaa midnimadu inay meesha ka baxdo iskaashigu inuu meesha ka baxo horumarku inuu meesha ka baxo ummadda ay qabiiladu kaga badan tahay ayuu horumarkeeda iyo horu socodkeeduna uu ka yiriye ummadiibu socod ayay noqotaa waa sida maanta ina haysata oo dadkeena bal u fiirso wax qoraya ama warbaahinta ka hadlaaya aad bay ugu yar yihiin dad ummadoo dhan u hadlaaya ummadan maslaxadeeda iyo danteeda iyo horumarkeeda ka hadlaaya iyagoo reero u kala qaadin waxay u badan yihiin dad qabiilad ka sheekeynaya anagu haddaan reer hebelnahay saamigii dawladda aanu ku lahayna lagama siin anagu haddaan reer hebelnahay
booskaasaanu lahaan jirnay waa la kala calaamadsaday xataa manaasibtii dowladda waana laga qaaday oo reer hebel baa la siiyey waqtigeenu wuxuu ku lumay iyo xoolaheena iyo xooggeeniba waxaas aynu ka sheekeynayno waxa idinaynu ka sheekayno oo laga hadlo lagu soo celceliyo wax dan inoo ah inaynu caafimaadka ka hadallo qofku si guud uga hadlo inaynu biyaha ka hadallo inaynu waxbarashada ka hadallo qof le labada sifee ilaahay cidda amaano loo dhiibayo uu sheegay oo alquwwatu wal amaana qof aamina isla markaa awoodna uu leh awood cilmi ama awood jireed marba shaqada loo diray u baahan tahay shaqadan loo dirayo mid awood u leh labadaas sifo taas lagu dhargeeya oo umadu waxay doonaysaa ay ku helaysaa qofka mas'uulka ahina hadduu cadaalad ku shaqeeyo oo inamada shaqada doonaya hablaha doonaya aanu reer hebelnimo u kala eegin ee sifaadka iyaga laftooda lagu kala sooco dadku waa iskaba ilaabi lahaayeen baan idhi reernimadan ay kaga dhigtay ee madaxtinimo marka la soo hadal qaado markiiba shaashada horta la imanaysa maskaxdooda iyo maankooda ku soo dhacaysa waxaan loo yaqaan qabyaalada sideedaba yaa adeegsado oo qodob aad iyo aad muhiim u ah oo ku celceliya waxa adeegsado qof jaahila ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحكو شغيني تاي باق ييرمو جهل كسليسن ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم يا رير هبلاي markii ay yiraahdeen dadka qaar kood isku xanaaqay rasuulku wuxuu yiri ma yeermadii baaqi jaahiliyada ayaad ku tiraabaysan anoo idin dhex joogay marka qabyaalada iyo jahligu isku xidhayin hadaa aragto qof aqoon sheeganaya wadana qabyaalad ku shaqeynaya qalbigu jaahilkay qofkaas fil xaqiiqa walaw ay xaq damiirka haba noqdo qof macluumaadka qaar kood hayee qabyaalada waxa ku shaqeysta qof nuqsaan dareemaya hadaa adigu isku kalsoon tahay oo aan dareemahayn inay wax ka dhiman yihiin reer isku taageeri maysid wixii wanaaga adigu aad leedahay sheeganaya laakiin dad kale wanaagi ay leeyeen haday jirtaba ku faani maysid warmasdaan reer hebelnahay waxay qabyaaladu ay ku shaqeysaa wax loo yaqaano yaani غير واقعيه wax waaqic ka fog mucaarida qolooyinka mucaaridka doorashada qolada shimeena qolada kale ayuha marka xagga axsaabta laga eego hadalada qiimo badan buu yiri wuxuu yiri dadweynaha isagoo la hadlaya dadow nimanka iyaga siyaasiyiinta ah ee noo qaylinaysan qaarkii laga yaabo inay noo dhintaan ama loo xidho dhibaato u soo gaadho waxaad arki doontaan anagoo berri kafeega wada cabayna maalmo yar kadibna muuqaalata ka turjumay waxaan filayaa dadku way arkeenba nimankii siyaasiyiinta dadku ay islahaayeen aad bay u kala fogyiin oo col daahigo ay kala raaceen ay isu caayayeen ay u dagaalamayeen ay isu shiidayeen oo iska wada shaayinayo saaxiib iska kaftamaya ayaa la arkay marka qof dan uu leeyahay isagu u socdaa reernimo iyo qabyaalad adiga yaanu kugu kicinin oo diintaada iyo dantaada adduunyo aanu kugu seejinin waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu u baahanay sidaan ku bilaabayba iskaashi aynu kula dagaalano qabyaaladii qaadka labadaas aafooyin badan baa jira laakiin kuwa u daran ee bulshadeena inteeda badan gaadhay wada raadeeyay bay kamid yihiin waxaan leeyahay dhalinyarta sidan oo kale ha ka bilaabanto boorta dhalinyarta aqoonyahanka ah adduunyadu halkay maraysa la socda diinta islaamka wax ka bartay wax ka fahmay bal horta iyagu yaanay qabyaalada iyo qaadka maxaabis u noqon iyagu ka xoroobaan cid ka xorowdo umada inta kale ay ku dayato waa in la helo oo meel kasto la isugu yimaado isaga mabdiisu uu yahay la dagaalanka qabyaalada iyo ka shaqeynta wada jirka wanaaga lagu wada jiro iyo iskaashiga hadii taasi la helo biidin Allah subhanahu wa ta'ala xanuunba marba dawadiisa la helaaye waynu ka dawoobi doonaa kulli la waayi maayo cid ay xanuunadaasi qulubtooda ku sii liqaansanaadaan laakiin umadu si guud bay uga dawoobi waana wacyigelintaas waa sidoo ku daweeyay Maxamed Cali salaatu wasalaam oo golihii Maxamed waxa isugu yimi ragii Quraysh kamid ahaa Abu Bakar iyo Umar iyo rag xabashi ah sida Bilal iyo rag aha reer Faris sida Salman al-Farisi iyo rag aha reer Rum sida Suhayb al-Rumi waxa isugu yimi kii adoonka ahaan jiray
iyo kii isagu dadka adoonsan jiray kii reernimo ku faani jiray iyo kii la liidi jiray waxay isugu yimaadeen iyagoo siman waxyaaba ugu muhiimsan ummadda lagaga daweyn karo waxa kamid ah ummadda iimaankeeda iyo caqiidadeeda iyo barashada diinta islaamka iyo ku camalfalkeeda iyo ku dhaqankeeda in kor loogu qaado ku dhaqankeedu waa muhiim waayo waxa laga yaabaa qofku isagoo sheekha ama arday diinta dhigtaa ama macallin diin dhiga in isaga laftiisa qabyaaladu ay ka dhex guuxayso tusaalaan idin siriya nimo wadaadaabaan habeen u gar qaadnay oo wax isku haystay midba wuxuu ku eedeynayay berigii ay doorashooyinku jireen waa doorashooyin hore adigoo nin wadaadoo daaciya ayaad xisbi hebel raacday mabuu dafirin oo muu odhan ma raacin waxaase wuxuu yidhi nin inta maxaad kaga celcelinaysaa soo nin maalin hore kuu sheegee ku odhi anigu wax kale kuma raacine reerkaygu ma raac waanan toobad keenay soo nin ku odhi maxaad kaga soo celcelinaysaa marka dhammaanteen wadaadada laftooda ayaa u baahan in laga wacyigeliyo cid aan u baahnayni ma jirto xanuunku hadduu bulshada dhexdeeda ka jiro cid walba saameyn iyo raad buu ku yeeshaa marka ayaa laga hadhin baan ku gabagabeynaya jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.